ka waran haddii kitaab la soo dejiyey 1400 sano ka hor uu maanta weli yahay kan ugu akhriska badan dunida. Haddii kitaabka malaayiin qof ay wada xifdiyeen iyadoo aan hal xaraf laga bedelin. Kitaabkaas waa Quraanka Kariimka ah, ma ahan sheeko taariikheed, ma ahan sugaan caadi ah, waa hadalka Alle, Rabbiga caalamka. Maanta waxaan si qoto dheer u eegi doonaa sida uu Quraanku soo degay, mucjisadiisa, saameyntiisa iyo sababta uu weli qalbiyada u bedelo. Assalaamu calaykum. Soo degista Quraanka waxaa lagu soo dejiyey Nabi Muhammad, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, isagoo jira 40 sano. Waxyigu wuxuu ku bilowday godka Qaar Xiraa, halkaas uu ku cibaadeysan jiray. Malakul Jibriil ayaa u yimid erayadii ugu horeeyay isagoo ku yiri akhri. Inkasta oo uusan wax qorin ama akhrin, haddana wuxuu noqday kii gudbiyey kitaabka ugu cajiibsanaa taariikhda. Quraanka si hal mar ah looma soo wada dejin, wuxuu soo degayey 23 sano si tartiib ah. Mararka qaar wuxuu soo degi jiray marka su'aal la weydiiyo, marka dhacdo ama si qalbiga nebiga loo xoojiyo. Taasi waxay muujinaysaa in Quraanku yahay mid la jaan qaadaya nolosha dhabta ah. Mucjisada luqadda ee Quraanka. Carabtii waqtigaas joogtay waxay ahaayeen kuwa ku xeel dheer sugaanta, waxay qabteen tartamo gabaya ah, ereyga iyo maansada waxay ahaayeen sharafkooda. Laakiin markuu yimid Quraanku way aamuseen. Quraanku wuxuu ku yiri, haddii aad ka shakisan tihiin, keena hal suurad oo la mid ah. Qofna ma keenin. Xitaa kuwii nebiga la dagaalamayay ma aysan awoodin inay keenaan wax la mid ah Quraanka. Qaab dhismeedkiisa, miisaankiisa, xulashadiisa ereyada waa mid la mid ahayn hadalka bini'aadamka. Taasi waa mucjiso luqadeed oo ilaa maanta taagan. Xaqiiqooyinka cilmiyeysan ee ku jira Quraanka. Quraanku wuxuu xusay xaqiiqooyin cilmiyeed qarniyo ka hor inta aysan saynisyahanadu ogaan. Tusaale ahaan, marxaladaha urjiifka uu maro, buuraha oo leh hiddo dhulka hoostiisa gala, iyo in wax walba laga abuuray biyo. Xilligaas ma jirin mikroskoob, ma jirin cilmi casri ah. Sidee ayuu nin ku nool Saxara Carabta u ogaan karaa arrimahan iyadoo aysan jirin waxyi xag ka yimid xagga Alle? Jawaabtu waa mid cad, waa waxyi ka yimid xagga Alle. Saameynta Quraanka. Quraanku wuxuu bedelay dad. Carabtii ku nooled jahliga, qabyaaladda iyo dagaal joogto ah waxay noqdeen ummad hogaamisa dunida. Quraanku wuxuu baray cadaalad, naxariis, xushmad iyo mas'uuliyad. Maanta sidoo kale qofka qalbigiisu culus yahay marka uu maqlo Quraanka wuu degaa. Qof murugaysan markuu akhriyo wuxuu helaa rajo. Quraanku ma aha kaliya kitaab la akhriyo, waa dawo qalbiga. Ilaalinta Quraanka. Alle wuxuu ballan qaaday inuu ilaalin doono Quraanka. Maanta malaayiin qof ayaa xafidsan Quraanka oo dhan. Caruur yaryar oo 7 jir ah ayaa qalbigooda ku haya 6,000 oo aayadood. Haddii dhammaan nuqulada Quraanka la gubo maanta, berri ayaa dib loo qori karaa, sababtoo ah wuxuu ku jiraa qalbiyada dadka muslimiinta ah. Taasina waa mucjiso. Gunaanad qiiro leh. Su'aashu ma aha Quraanka ma yahay mucjiso. Su'aashu waa, adigu xiriir intee leeg ayaad la leedahay Quraanka? Ma akhridaa maalin kasta? Ma fahantaa macnihiisa? Ma ku dhaqantaa? Quraanka ma aha kitaab shelf la saaro, waa kitaab nolol bedela. Haddii aad rabto in qalbigaagu iftiimo, la saaxiib Quraanka. Ugu dambeyntii, haddaad ka mid tahay saaxiibada channelka, like noo saar. Haddii aad nagu cusub tahayna, subscribe iyo like-taba suuqa ayatar. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.